kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal idil ahaantiinba meel walbo aad ku sugan tihiin iyo si walba oo idin soo gaaraya maqalkayaga kusoo dhawaada barnaamijkeeni xog iyo xaqiiqo qaybtan hadduu rabbiidma waxaynu ku eegi doonaa wararkii ugu dambeeyay weerarkii lagu qaaday ciidamada Eritreanka ee ku sii jeeday xuduudda ay la leeyihiin ismaamulka Tigreega waxaa la jooga wariye Guuleed oo arintaasi inoo falanqeyn doona Guuleed soo dhawow marka hore waxaa ka hormartaa weerarka dhabagalka ah ee lagu qaaday ciidamada Eritreanka waa mahadsantahay hadraawiyow sida aad hordhacba ku sheegtay gobolka Tigreega oo aan ogeyn in ay dagaalo culus ka socdeen muddooyinkii ugu dambeeyay kadib markii dowladda dhexe dalka Ethiopia ay weerar ku qaaday sanadkii la soo dhaafay gobolkaasi oo ugu dambeyntiina kooxda TPLF ee xukunka deegaankaasi haysay meesha looga saaray dagaaladaasi oo muddo dheer soo jiitamayay waa kuwa ilaa iyo maanta socda hay-adaha qaramada midoobay ee xuquuqda bini'aadanka u dooda iyo dalalka heer galbeedka inta badan waxay ka hadleen xadgudubyo badan oo ka dhacay deegaankaasi Tigreega warbaahinta ayaa markii ugu horeysay loo fasaxay gobolkaasi Tigreega waxayna soo wariyeen dhacdooyin naxdin leh oo aad looga argagaxay inta badan intii aragtay sida ay u soo tabiyeen warbaahintaasi heer galbeedku dhacdooyinkaasi ay soo tabiyeen gobolka Tigreega ka dhacay waxa ugu xanuun badnaa intii anigu aan ka arkay kulay rag qoysaskoodii la yiri kufsada qoryana dhafoorka laga saaray inta kale kuma koobnaanin dhalinyarada wixii dhalinyaro ah birta laga aslaya waa la dilayaa inta aysan heerahooda kufsanin iyo qaraabadooda kufsanin ka hor yaa qudha laga jaraya dad qaxooti oo ka soo cararay dhibaatada meesha ka jirta oo u waramayay warbaahinta gobolka Tigreega loo fasaxay dhacdooyin noocaas oo kala xanuun badan ay ka sheekeynayeen haweenka iyagoo soo qaxay oo kuwii uurka lahaa ee wadada ku dhalayeen ilmahoodiina ay halka kaga soo tagayeen si ay u soo gaaraan goob nabada oo ay ku badbaadaan waxaad moodaa Tigreegu wixii ay horay u listeen yani wixii ay horay u sameysteen inay hadda maalayaan 27 sano ugu dambeysay ay marka laga reebo 2 sano ama 3 sano hadda isbedelku ka jira dalka Ethiopia kooxdan TPLF iyo Tigreega waxay ahaayeen kooxdii xukunka Ethiopia gacanta ku hayay waxayna geysteen tacaadiye hadda kuwan la soo warinayo la midaba gobolada kala duwan iyo deegaanada kala duwan Ethiopia ay hore uga geysteen kooxdan TPLF iyo Tigreega waxaan xusuustaa gobolka Soomaalida dhibaatooyinka ay ka geysteen kufsiga hadda iyagoo ay ka cabanayaan ku la mid ah baxsan magaalooyin dhan oo la gubay oo dab la qabasiiyay hadii Ilaahay ku sameeyo ogol yahay dad wadar ahaan loo dilayo oo xarig lagu dilayo wixii ay hore iyagu u sameeyeen inay hadda maalayaan laakiin shacabka iyo jabhadda way kala duwan yihiin Soomaaliya dabcan iyagu waa meesan kala saari jir hadda sida ay iyagu jabhad iyo shacab aan loo kala saaraynin bayna iyaguna u kala saari jirin oo waxa la leeyahay waxay arkaan lacagta u marin jireen wixii ay gurteen wixii ay horay u beerteen bay guranayaan marka intaas laga yimaado dhibaatooyinkaas iyo dagaalada khadad iyo kumanaan qof oo barakacay iyo kumanaan kale oo god u hoyday oo si wadar ah loo dilay waliba marka laga yimaado dagaaladaas wali way sii socdaan qodobkan hadda ugu dambeeyay aynu warkeena madaxdiisa aynu ku soo qaadanay waxaa jirta ciidamada Eritrea dalka Ethiopia soo galay horaantii hawlgalkan TPLF lagu qaaday ra'iisul wasaare Abiy Ahmed oo maalin dhaweeyay la hadlayay baarlamaanka wuxuu sheegay oo uu qirtay in ciidamadaasi jiraan horeyna warbaahintu waxay u tabinaysay in ay jiraan ciidamo Eritrea oo kaabaya kuwa militariga Ethiopia si kastaba ha ahaato muddo dheer baa la difirayay laakiin ugu dambeyn ra'iisul wasaare Abiy Ahmed baarlamaanku ka hor qirtay wuxuu yahay ciidamada Eritrea way joogaan dhowr maalin kadibna wuxuu booqday meesha la yiraahdo Asmara wuxuuna sheegay in Eritrea ay ka heshiiyeen qaabka ay ciidamadeeda uga bixi lahayd wixii hadda ka dambeeyana ciidamada Ethiopia ay xuduudda sugi doonaan isla markaasina ciidamadaasi laga saari doono gobolka Tigreega ciidamada Eritrea haddana dawladda Eritrea war ka soo daba saartay waxay tiri wax ciidamo oo nagaba joogaba meesha maba jiraanba dafiraad cad bay indhaha u saartay waxayna tiri ciidamo nagama joogan sababta ugu badan ee loo sababaynayo in Eritrea siyaasad fawarqi ay dafiraan inay ciidamo ka joogan gudaha Ethiopia waxa lagu sababeeyay in ay gaboodfalyo fara badan ka dhaceen gobolkaasi Tigreega oo heer galbeedka iyo warbaahinta caalamiga ay soo tabinayaan isla markaasina qaarkood baaritaano lagu hayo haddii ay qirtaan hadda marka in Eritrea ciidamadeedu ku joogeen oo hawlgalka ay qayb ka ahaayeen siyaasad fawarqi kalitaliyaha xukuma Asmara
waxa ay ciidamada Eritrea ka geysteen gobolka Tigreega isaga ayaa mas'uuliyadda qaadan doona isaga laga xisaabtami doona isagana maxkamad iyo maxaan ku yiraahdaa ilaa dacwad lala daba istaagi doona marka way dafirtay Eritrea dhanka kale waxay bilowdeen ciidamada si tartiib uga la baxdo gobolka Tigreeg ciidamo fara badan oo watay ilaa iyo baabuur fara badan yaa waxaa la sheegay inay ka soo baxeen Maqale kuna sii jeedeen dhanka xuduudda Eritrea ee Ethiopia la wadaagto meel lagu magacaabo meel u dhaxaysa Adagaraad iyo Maqale iyo kooxda TPLF dhabagal ugu sameysay halkaasi waxaa ka dhacay maalinimadii shalay ahayd dagaal culus oo aan waxba la isu reeban dagaalkaasi waxay sheegeen sida aan warka ka soo xigeynay nin wariye hore oo BBC-da ka tirsanaan jiray oo lagu magacaabo Martin wuxuu sheegay in lagu gubay 27 gaari wuxuu sheegay in ciidamo kumanaan gaari oo Eritrean lagu dilay wuxuu kaloo sheegay in ciidamadaasi la dilay ay ku jiraan ugu yaraan 3 generaal oo ka tirsan ciidamada Eritrea horay ayaa ciidamo fara badan oo Eritrean loogu dilay gobolka Tigreega dawladda Eritrea markay ka hadlayso ciidamada lagaga dilo gobolkaasi Tigreega waxay ku sheegtaa inay caabuq iyo xanuuno kale iyo malaria iyo ay wax u dhintaan oo inta badan ma qirato khasaaraha ka soo gaara tanna lama filayo laakiin waxa muuqanaysa in Eritrea ay si tartiib oo qarsoodi ay u bilaabayso in gobolkan Tigreega ay ciidamadeeda uga daabusho oo ay u geyso xuduudeedii Eritrea hadda hadii ay ka baxdo gobolkan Tigreega waxa laga cabsi qabaa in kooxdii TPLF ay wacdara la soo laabato iyadoo la og yahayba in hadda gobolka Tigreega meelaha ugu badan kooxdaasi TPLF laga saaray ama dagaalada adag ay ka dhaceen ay kula dagaalameen ciidamada Eritrea marka waxay ahaayeen xuduudda kaliya ee gobolkaasi Tigreega horeysay marka la eego awoodda sii daciifaysa ciidamada militariga Ethiopia iyo Abiy Ahmed waxa la leeyahay uma suuroobi doonto in gobolka uu ku sii dambeeyo oo ku sii nagaado hadii ciidamada Eritrea ay ka baxaan gobolkaasi kooxda TPLF iyadu dhawaanahan hawlgallo cusub ay bilowday waxay sheegeen inay ku faafinayaan dagaalka gobollo horne waxay weerareen gobolka Amxaarada ee dariska la ah oo ciidamo maleeshiyada fara badan oo Amxaari ay hawlgalka taageerayeen dawladda dhexe soo galeen iyagana lagu eedeynayay gobolfalyo inay geysteen magaalooyin dhan bay gubeen intay gudaha u galeen deegaanka Amxaarada kooxda TPLF ugu yaraan waxaa la sheegay in 10,000 askari ay u direen gudaha Tigreega gudaha Amxaarada sidoo kale deegaanka Canfarta ee dariska la ah dawladda deegaanka Tigreega iyadana waxaa loo diray ciidamo TPLF oo jamaacadaasi TPLF ka tirsan marka waxaad moodaa in hadda ciyaar hor leh ay ka soo bilaabanayso meeshii loo oran jiray gobolka Tigreega maadaama cadaadiska beesha caalamka iyo in lagu khasbay dawladda Eritrea iyo Ethiopia in ciidamada Eritrea laga saaro gobolkan Tigreega ugu dambeyntiina miro dhashay oo ciidamadani laga saarayo gobolkaasi oo iyadoo aysan Eritrea qaranayn ay saarayso haddana waxaad moodaa in casharo cusub maalmaha soo socda halka laga daawan doono waata guuleed aad u maasan tahay kadib weerarkan dhabagalka ah ma laga yaabaa in qorshaha ka bixitaanka ciidamada Eritrea ee gobolka Tigreega wax iska bedelaan والله ما muuqanayso marka la eego beesha caalamka cadaadiska saartay Eritrea iyo dawladda Ethiopia ba waan sii nagaanaynaa waana la weeraray mid caqli gal uma muuqato waxaad moodaa in hadda ay khadka casaan la gaaray oo meesha la isu soo jeesaday Eritrea waa khasab inay ka baxdo gudaha Ethiopia sababtoo ah ra'iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed yaa baarlamaanka ka horqirtay in ciidamo shisheeye ay gudaha dalkiisa ku jiraan ciidamadaas waliba lagu eedeynay inay gobol geysteen marka ciidamadii sidaas loo eedeynayay la lahaa habaxaan markan sii baxaynay baa nala weeraray oo ma socono meel oo ma socono wax soconaya ma ah laakiin aqliyada kale taliyaha ka taliya Eritrea Isaias Afwerki iyo tabarta Abiy Ahmed ee urun sheegtay uusan wax badan oo dambe uusan sii haynin waa laga yaabaa inay si ay dhuumaalaysi ay ku sii joogaan laakiin si hadaba sida ay u shaacsan tahay u muuqatay ee awoodda ay ku joogeen ah uma sii joogi karaan gobolka Tigreega ciidamada Eritrea waa tahay militariga Ethiopia waxa lagu tiriyaa inay yihiin kuwa ugu awood badan geeska Afrika awood uma laha miyaa inay sugaan amniga gobolka Tigreega run ahaantii waa su'aal fiican horta waabay ahaayeen military fiican oo awood leh
hadda ciidamada Ethiopia qowmiyad bay u kala furfurteen waxaan ognahay in Ethiopia qowmiyad hadda la nabada aysan jirin dowlad deegaanka Soomaalida lagu sheegay inay meesha ugu nabdoon tahay inta kale dowlad deegaanadii Ethiopia waxay noqdeen kuwo kooxda u xigta ay cunayso ciidamadana cirka kama soo daadanin waxay ahaayeen kuwo qowmiyadahan isdilaya ka yimid kala qaybsanaan badan baa soo dhaxgashay maxaan ku yiraahdaa kala shaki iyo dadkii waa qowmiyadahan coloobay waxa meesha lagu arooriyay marka way kala furfurteen taa waxa uu helisa gobolka Tigreega dagaalkii lagu qaaday militariga Ethiopia technically iyo gaadiidka dagaal uu isticmaali jiray 80% gobolkaas ku burburay waa sababaha hadda Eritrea Sudan oo darisla Ethiopia oo ay dhul isku hayaan intay soo weerartay oo dhul uga qabsatay Ethiopia aysan ilaa iyo haatan jawaab u bixinin Addis Ababa aan ka ahayn ciidamadana laga saaray madax banaanida hal la dhowri iyo waana la soo weeraray aan ka ahayn Ethiopia hay'ad tabarta lahayd haday jirto Sudan bay iska celin lahayd marka su'aasha jawaabteeda Ethiopia waa libax baqtiyay oo laga cabsanayo wali laakiin waa qobkii oo meesha yaala tan tabartii way ka dhamaatay ciidamo is hayay ma jiraan waa sababtay ugu baahdeen ciidamada Eritrean waa sababta Sudan waxay rabtaa uga sameynayso gudaha Ethiopia diyaaradaheedu u duqeynayaan gudaha Ethiopia xitaa tabar ahaan ciidanka Ethiopia ciidan ahaan ma burbureen waxay u burbureen gabi ahaanba way burbureen gaadiid ma haystaan technique ma haystaan moral ma haystaan hubka cusla ma haystaan diyaaradihii dhowr baa waxba lagu soo riday Tigreega intii hawlgalku ka socday marka Allah waxaan leenahay Ilaahay ma arooriyo waanta daawadayaal aad ayuu mahadsan yahay guuleed qaybtan intaas ayaan ku soo gabagabeynaa intaan dib u kulmi doono waxaan idinkaga tageynaa sidaas nabadgelyo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wa barakaatuh